maanta waxaan ka hadlaynaa deegaanka wadan walbaaba waxba maxay tahay resource leeyahay ama horumar uu leeyahay maxay tahay dhaqaalihiisa iyo noloshiisaba ka mid ah inagu badiyo bari baanu leenahay oo ilaahay deen maxay tahay wadan hodan oo nimcad ilaahay nasiiyay oo nimcad ilaahay wada dul taalo haddii macdan noqoto haddii shidaal iyo khayraad ay noqoto haddii ay xoolo noqoto inaga lafdhabarteena koowaad waxay ahayd xoolaha ahayd xoolaheenii maxay tahay waa ognahay xaaladda maanta ay ku sugan yihiin oo xoolo ma jiraan oo sidii mudanayaashii iga horreeyay ka hadleen xoolaha maxay tahay Soomaaliland waa aynu ognahay maanta inaanay xoolo maxay tahay far badan ayna jirin oo laga soo xarooday xoolihii oo maxay tahay xooli meesha ka baxeen waxaan oran lahaa aynu deegaankeenii dib u dhisano maxay tahay bilicdii deegaanka aynu dib u aasno oo dhisno xoolihiina dib hal ugu noqdo dadkii ka soo xarooday dadkeenan maanta joogay maxay tahay wax fahansan war xoolihii dib ha ugu noqdaan reerihii miyiga dib ha loo sameeyo oo rag maxay tahay miyigii dib ha ugu noqdo hadda yabay miyigi oo raggii naga horreeyay maxay tahay halkan soo joogay baad marka hore magaaladana hay miyigana hay xooli horta laga warhayo ha lagu noqdo deegaanka isaga laftiisa waxa jira dhaawacyo badan oo soo gaaray waxa jira wadooyinka la sheegay meel walba oo gaarigu marayo maxay tahay uu nabad guurinayo deegaankii waxa jira nin iska xiranaya intaas oo hektar oo maxay tahay wadan dhan iska xiranaya oranaya waa dhul aan leeyahay waxa jira meelada inta la deegaamayo baraaga iyo wax laga qoday lagu dagaalamay oo colaad ka dhacday oo maxay tahay aan iyagana ay seerayaal iska meelaha iska xiran yihiin deegaanka markaa waa inaynu inagu deegaankeena aynu eegnaa noloshiisa oo inagu aynu dhisnaa noloshiisa iyo maxay tahay dib u habeyntiisa waa inaynu ka shaqeynaa haddii reer Soomaaliland nahay si haddii inagu aynu deegaankeenii baabiinayno oo iscolaadinayno deegaanka isagoo inta ka badan ay dadku ka yar yihiin baa lagu wada noolaa iyadoo maanta ay maxay tahay aynu ka siinahayna aynu arkaynana waaba ina deeqi lahayn war deegaankii aynu dib u dhisno oo dib isu hagaajino oo wadankii dib ha lagu noqdo inagu aynu maxay tahay bal dib horta isu wada maxay tahay obargarayno ayaan anigu soo jeedin lahaa